heshiiska xabad joojinta oo muddo dheer la sugayay ayaa si rasmi ah u dhaqan galay. Saddexda maxbuus ee ugu horeeya ee xamaas sii dayn doonto ayaa lagu magacaabaa Daron Steinberg oo 31 jir ah, Emile Domario oo 28 jir ah oo dhalasho laba geesood ah, British iyo Israa'iili, iyo Romy Gannon oo 24 jir ah oo laga afduubtay Supernovel Festivalka bishii Oktoobar 2023. bayaanka ka soo baxa xafiiska ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa lagu yiri sida uu qorshuhu yahay xabad joojinta wejigii koowaad ee Gaza waxay dhaqan gashay 11:15 subaxnimo waqtiga maxalliga ah. heshiiska xabad joojinta ayaa loo qorsheeyey inuu dhaco 3 weji. wejiga koowaad 33 maxbuus ayaa lagu wadaa in lagu sii daayo muddo 6 toddobaad ah, iyadoo lagu bedelanayo boqolaal Falastiiniyiin ah oo ay Israa'iil xiratay. maxaabiista inteeda kale waxaa lagu sii dayn doonaa wejiga labaad 98 maxbuus oo laga afduubtay gudaha Israa'iil. kadib markii Israa'iil ay ku dhawaaqday in heshiiskii xabad joojinta uu dhaqan galay, Xamaasna ay soo gudbisay 3 gabdhood ee magacyadooda la sii daynayo, ayaa kumanaan Falastiiniyiin ah ay isugu soo baxeen wadooyinka guud ee Gaza markii xabad joojintii u dhaxaysay Israa'iil iyo Xamaas ay bilaabatay. qaar iyaga oo u dabaaldegaya, qaar kalena iyaga oo booqanaya xabaalaha qoysaskooda, halka kuwa badanna ay dib ugu carareen guryahooda. Aya oo ah haweeney ka soo barakacday magaalada Gaza oo muddo ka badan sanad ku noolayd Daar al-Balax ee bartamaha Gaza ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters, waxaan dareemayaa inaan ugu dambeyn helay biyo aan cabo kadib markii aan 15 bilood aan ku noolaa meel saxarawe ka ah. waxaana hadda aan dareemay inaan noolahay. dagaalyahano ka tirsan Xamaas oo hubaysan ayaa ku dhex maray magaalada koonfureed ee Khan Younis, iyadoo dadweynuhuna u sabcinayeen oo ay ku dhawaaqayeen erayo taageero ah. inkasta oo jiray ku dhowaad 3 saacadood oo dibudhaca intii lagu guda jiray dhaqangelinta heshiiska kaasi oo soo afjaray 15 bilood oo dagaal burbura horle ah. booliiska Xamaas ee xirnaa dharka buluugga ah ee booliiska ayaa lagu arkayay qaar ka mid ah goobaha ay dadku isugu soo baxeen kadib bilo oo ay isku dayeen inay dhuuntaan si ay uga fogaadaan duqeymaha cirka ee Israa'iil. dadkii isugu soo baxay inay taageeraan dagaalyahanadooda ayaa ku dhawaaqayay salaam ku socda cutubyada al-Qassam. sida gadaashayda hadda aad ka aragtaana waa dadkii isugu soo baxay maanta markii xabad joojintu ay dhaqan gashay marinka Gaza. wasiirka maaliyadda ee Israa'iil Bezalel Smotrich ayaa ku dhawaaqay in Israa'iil ay qabsato marinka Gaza oo ay dhisto maamul militari, isagoo ku hanjabay inuu ridi doono xukuumadda haddii aysan sidaas samayn. isagoo la hadlayay idaacadda ciidamada Israa'iil, wasiirka midigta fog waxa uu sheegay in Israa'iil ay khasab ku tahay inay qabsato Gaza oo ay dhisto maamul militari oo ku meel gaar ah, sababtoo ah ma jirto waddo kale oo lagu burburin karo Xamaas. wuxuu intaa ku daray, waxaan ridi doonaa xukuumaddu haddii aysan dib ugu noqon dagaalkii si aan u qabsanno dhammaan marinka Gaza oo aan uga talino. wuxuu sidoo kale dhaleeceeyey taliyaha ciidamada difaaca Israa'iil Xirsi Xalafi, isagoo ku tilmaamay mid tabar daran oo istiraatiijiyadiisu ay tahay mid daciif ah. Smotrich ayaa yidhi, haddii aan ahaan lahaa ra'iisul wasaaraha waxaan taliyaha ciidanka u sheegi lahaa, tani waa siyaasadayda, haddii aadan fulin karin gurigaaga tag. wuxuu sidoo kale ku adkaystay in Israa'iil ay la wareegto bixinta gargaarka bini'aadanimada ee marinka Gaza. dhanka kale, wasiirkii amniga qaranka ee Ben-Gvir iyo 2 wasiir oo kale, waa wasiirka dhaxalka iyo wasiirka dib u dhiska qaranka, ayaa warqadahooda iscasilaada u gudbiyey ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu, kaasoo weli haysta aqlabiyad yar oo ka sineedka baarlamaanka Israa'iil, inkasta oo ay iscasileen. laga bilaabo wakhtigan xisbiga Osman Yehudi kuma jiro
xisbiga isbahaysiga ayaa lagu yiri bayaan ay soo saareen. xamaas ayaa waxa ay sheegtay inay sugayso liiska magacyada 90 maxaabiisa oo Israa'iil ay rabo inay maanta sii deyso, taasoo qayb ka ah baa la yiri heshiiska maxaabiis dhaafsiga ee maanta la filayo in la fuliyo. ciidamada Israa'iil waxaa laga filayaa inay si dhow u soo gudbiyaan liis ay ku qoran yihiin magacyada 90 maxbuus oo ka tirsan qaybaha haweenka iyo carruurta, kuwaasoo lagu wado in laga sii daayo xabsiyada Israa'iil maanta. xamaas ayaa waxa ay sheegtay in heshiisku uu qeexayo sii deynta 30 maxaabiisa oo Falastiiniyiin ah laguna bedelanayo 1 maxbuus oo Israa'iili ah, taasoo macnaheedu tahay in maanta la sii deynayo 3 Israa'iiliyiin ah. 3 Israa'iiliyiin ah ay waajibku tahay in midkiiba 30 Falastiiniyiin ah lagu bedesho oo ay Falastiiniintu ay noqdaan 90. inta ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkeenii koobnaa aynu kaga hadlaynay arrimaha heshiiska iyo maxaabiis dhaafsiga ee Falastiin iyo Israa'iil. inta aan dib u kulmi doono waa Cabdirashiid Geelle iyo barnaamijka Sooyaal TV iyo dhacdooyinka maanta oo idinla isma dhaafno.